اسماعيل اركا وحواي نكان وحو كقاتي كون 700 habeenku uu rabi inuu meesha imaado lagu ballamay Ismaaciil Arka waa gooyay ninkan waa ogtiin waa soo fadhiistay shalay toole wuxuu yiri lacag iga maqan Ismaaciil Arka waa dhacay tuug waaye taqaana waana dacweyna dadka waa yaabay marka dad qaar waxay u qaateen fuusto dad badan ka soo hadlay waxay dhahaan inta waa fuusto abgaalkii waa aragtay Ismaaciil Arka abgaalka laga mar waa jecel yihiin waa difaacanayaan waxay leeyihiin ninkan been uu sheega kadib baarisa sameeyay xog fadhiso 100% confirm wali arintan confirm 100% maana waa million confirm waaye taqaana Ismaaciil Arka ninkan kaligiis lacag kama qaadan ninkan lacag ka qaatay labadan nin hal habeen aroos wada lahaayeen ninkan Maxamed waxa waaye sir badan idinka ayaa doontiin waxaan rabaa inaan idin sheego marka siday fanaaniinta lacagta u qaataan aroosada waxaan rabaa inaan idin sheego sida sheekadu u fahantaan arintan ma ahan fuusto ma ahan waa confirm 100% waaye Ismaaciil Arka ninkan lacag ka qaatay heesna u sameeyay arooskan uu ku balmay habeenkaas inuu imaado Ismaaciil Arka ninkan lacag ka qaatay habeenka inuu imaado waa ku ballamay dayaxdan nuushe abtigay iyo Ismaaciil Arka iyo fanaaniinta kale shaadiye iyo ayaan wadani iyo xawadagan iyo waxay sameeyaan aroos labada saddex aroos ama laba aroos ee hal habeen ka tumaan saacada macnaha arooskan ay tagayaan 5 saac 6 saac 7 saac kadib 7 saac 6 saac kan kale ay tagayaan saasay sameeyaan Ismaaciil Arka labadan qof bil ka hor lacagta ka qaatay balaad u fiirso oo kula heshiiyay 24 bish toddobaad in arooskooda dhaxay habeenkii heshiisku xidhan waa dhaxay Ismaaciil Arka nin fanaan waa nin culus way muxuu ceebta u soo jiidaa taas oo idin sheegi doona sirta ka dambaysa Ismaaciil Arka inuu labadan fanaan waxa sheegay labadan aroos inuu u gooyo oo lacag uu ka qaato idin sheegi doona ninkan kaligiis maaha ninkan uu ka qaatay ninkan magaciisu alla Axmed taqaana asagana waa aroos oo gabadhaas aroosay oo Fawziya Allah u barakeeyo taqaana isku habeen u dhaxay macnaha waxa waaye yarkaas waxa waaye Saacad Reer Lowle gabadha reer ayaan lawaaye ninkan Maxamed Fareen waa nin waxeesla oo waxa waaye mataqaana maxal dhiblaawa gabadha aroosayna Saacad Reer Jalaf aheed horta labada aroos isku maalin u dhacay labada aroos oo lacagta uu ka qaatay uu u gooyay habeenkiina Ismaaciil Arka labada aroos way marka waa fanaanku waxa waaye arinta waxa ku tahay fadaxay ceeb ay ku tahay taqaana horta waxa waaye confirm wax shak ma jiro maad Axmed waa nool yahay Maxamed Fareen maanta waa nool yahay confirm way labadooda lacag uu ka qaatay waana u gooyay sida marka wuxuu dhicina marka in sheegaa walaalayaal waxa waaye arooska taqaana fanaanka markuu waxanayo heshiis way waxana waaye dayaxdan nuurshe iyo ninka Ismaaciil Arka iyo shaadiye iyo waxay ka bilowdaan kun ay ka bilowdaan macnaha kun wixii kor u dhaafo way meesha ka bilaabanay macnaha kun 300 kun 500 kun 700 saas u bilaabanay waana heesa lagu sameeyna oo lagu amaanayo gabadha aroosiis macnaha qabiilkeeda mujufadeeda ama adiga macnaha kadibna habeenkii uu ka tumaa 3 4 hees wixii lagu heshiyo uu ku imaana heshiiska fanaaniinta saas way Ismaaciil Arka saas uu heshiisku galaa dayaxdan nuurshe heshiisku galaa labadan nin waxay leeshiyeen Ismaaciil Arka laad u fiirso lacagtiina waa shubeen Axmed hees u sameeyay oo hadda waa aragtay arooskiisu heesta uu ka shiday Maxamed Fareen hees u sameeyay habeenkii markii waqtiga la gaaray Ismaaciil telefoon waa dansaday sabab maxaa walaal sabab waxa waaye waxa soo baxnay ilaa liima shuq oo taqaan hadda galmudug wuxuu wataa jawaan oo dollar wata wallahi bilaa talaa gacantu gilna bis markino wax alla wixii tagtowlay oo dhan markino duurkaas joogan kaneeca ku cunta hataa wallahi bilaa talaa markino ayaga dhan maxayele wiligood Allah laba kun lama siin nin walba oo tiktoker ah oo hadda maqan oo gobolada dhex ku maqan waxa waaye 2000 wixii kor ka badan la siinaya Ismaaciil Arka waxa la dhahay tiktokerada 2000 la siinaya adiga waxa la 6000 5000 gacanta laga saaraa soo waxa la diyaarad soo raac Ismaaciil Arka dhagiya qeexay maxayele aroosdan oo 500 ka qaadanay shankun oo kaashe Ismaaciil Arka wuxuu yiri kuwan wuxuu yiri marka soo noqda iska saba Ismaaciil Arka waa habeenkii u baxay dheer u jooga saako arkaysa asoo hurdaysan u arkaysa heesu meesha u mikrofoonka heesu qaaday kuwan marka waxa walaalayaal Ismaaciil Arka wuxuu sameeyay waxa waaye liiban shuluq dadkii waa waalay liiban shuluq wallahi bilaa talaa wala ninkaas waxa lagu leeyahay madaxweyne galmudug noqona hadda waa nin waxa waaye jibaal lacag ku wada way wallahi bilaa talaa waxaan ku dhahay galmudug wallahi dadku waa baahan yihiin ceelasha waxaan ku dhahay galmudug oo aragtay war lacagtaas dadka masaakiinta qabiilkaas habir gidinta cadaadi iyo guraceel iyo dhuusamareeb iyo mudug degan u baahan inuu lacagtaas ku sadaqaysto wallahi bilaa ina bay sheegin waxaan ku dhahay saas wallahi bilaa talaa ugu yaraan hal milyan iyo bar dollar ka baxday labada ma la soo dhaafay waxaan ku dhahay wixii tiktoker waa aruursaday
لبا كن والله بلا طلع ما تنولين حتى بينك شيء فنانين تو حالينا سو أرورية اسمع الأرك شن كنا كبتين ما أرثنا كده هردي عبد الكراع ولا بلا شن كنا أنت ما استاجو أو هيسا أنا ما هيسا استاجو لما أروح الله صبح حتى ما كنا اسمع حد ما هيسو حد ما عاوزين هيسا بيقول لك شيء ما أنت ما يسين waxaan dhow waxay ku dhacday wali mashruuqa ka dambeeyay macnaha labadan aroos marka ay labadan nin waa inay maxkamad loo kala mashruuq way ismaaciil arka waa dambiil waa sax oo nimanka lacagta ka qaato u gooy sax waa arooskooda wayna ka rabaan uu u soo celi doonaa sa u malaynayo laakiin waxaan dhow waxa ka dambeeyay mashruuq taas ma fahanteen walaalayaal waxa waa arrinta aan sax way maxamed wuxuu sheegayna waa sax inkastoo axmed hale marka waxa waaye isku mid maahan abgaal ku aragto aad lacag jeceliin maxamed hadda ninka u jeedinin maahan herbaadima ogow maxamed farid وإنجنير واي أستان بل إنجنير واي وحنا سوي نسي كل تضرب ولا ليها أحمد لو حاول جوفر مساعد سعيد حريري لولوي باشا ولا كلام ديرسين يو والله معلق بلاوي يريلو مركز استاجان ريلو ولا ديريال واي طب هي عدينسا تاني عدينسا أحمد وكل شن بقول لك قاتل ما هذا وقامس أروس كسن إسماعيل وجوي إسماعيل أرك وجوي أحمد ما هذا دي كان واكنا إن أذيرك سوي إسماعيل أرك وحواي وحيسلو حوا متقانا عبد الرحمن سليمان واي كنا وحيسلو معلق بلاوي هل واي لبو ولا لواي فيري وحيد إنه مساعد معنا محمد فريه والله توي كاوس بعد اليوم وحاش أنا ماشان كشيء ومد أنا وشيء بقولك وبقول صح واي تقول تبقول وكان قاتني كوانو كوجوي وصحسنت محمد فريه أنا كرايو لكن ولك أنا كحشوت ها مسكين كذا سكدافته ها اللي وشو وعرني كان أنا سكدافته كلام دير يسمعنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته